الوزارة ونجح الحلية وبلما دولة الجنبي على الله سوق على لحية طبعا كقف الصومالي كسب بحيث قبل كجدو إن كان الله حلو هو كان يتوب عربية أيضا نديدنا نقول كان أنا في دي جايستي قالوا تشوبنا وكل درينا جدنا وكعيرنا تشوبنا وصلنا واسكويسنا وشوتنا الرسمي كذا واقع أمريكا هذا وأساس وعن كل علينا يا وحلو بالله بارون كصوماليا وأنسحية وحي كبحسن وأنن حافكي من حافد دينا نكلا ماما ملور الناس اللي جاي نصبت الصومالية لكم شرتوا دمعية عين كاسن الركبة هريس بده يكون جوبي. عن كلام يا أمد الصومالي جيران يبي داخل بدرها وعن كلام يا بعض الصحافة ده. هذا أرنا كربهاري هداد ويسو صوماليا دور شاء الله قبل يو هشيس لقلبي هاي 17 سبتمبر بالليلة كوبي طبعا قب دور شو شان معمول أما شان استيدو من لبعا يا عاصمة دالو بالماي بارمان لبا قولا قرن كي الصوماليا دولي هاي صحيحي مدحوين يا انسحيين مدحوين هنا هو صحيحي ما هجربهاري مركا شيء قف كرمه لبا قف كلا قاتو لبا قف كمرمان doorashadu way ka dhacaysaa waa sharci dastuuri ah waana amnigeedu waa boqolkiiba boqol laakiin shakhsiyaad dana kale leh kana faa'iideysanayo marxalad ay hadda ku sugan yihiin baa doonayo dadka Soomaaliyeed inay jahwareeriyaan waayahay ra'iisul wasaare Roble guddi ayuu u magacaabay guddigii Garbahari way tageen haatan Kismaayo ayay ku sugan yihiin marka bal ilaa iyo inta ay guddigaasi warbixinta ay uga soo gudbinayaan warbaahinta ama ra'iisul wasaaraha maxaa u sugi laadiin هذا وقت رئيس الوزراء روبله قد ما magacaabin asaga رئيس الوزراء مردك Soomaaliyeed umana shay ka filayeen buu Garbahari tagay wax ka badan 48 saac buu joogay ka bacdi guddi shanta maamul goboleedyo gobolka Banaadir ay ku heshiiyeen oo wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedaha la diray guddigaasna guddi sharci u ahaa asaguna ra'iisul wasaarihi shaqada loo dhiibtay buu markaa ahaa guddiga kale guddi sharci ah maaha guddiga doorashada heer state guddiga doorashada heer federaal wixii ka baxsan waa wax leeyahay nin gurigi wax uma magacaabi karo ra'iisul wasaaruhu eerka haday gaarto ra'iisul wasaarihi qaranka wixii lagu ballamay uu waayo dadku reer u noqonaya reer walbana meel buu degan yahay ilaahay ma kaliyay waxa weeye marka reer nin leeyahay nin kale oo dad uma magacaabi karo waliba midda markaan carabka ku dhufto todobada nin warqadda aan ku arkayay saddex nin waa isku reer oo waxay ka soo jeedaan Puntland iyo degmada Afmadow saddex ninna waa isku reer oo waxay ka soo jeedaan gobolada dhexe iyo gobolka Banaadir ninna waa reer meeshana reerii deganaa hal qof kuma leh guddiguna guddi sharci amaaha guddiga sharciga oo ay reegada sugayeen iyo wixii lagu heshiiyay 17 September intaba ra'iisul wasaaruhu ka baxay waxyaabo marka kale oo danaysi ah baa meesha ka muuqanaya hadee nin xaafadiina nin kale oo shakhsi ah kama danaysan karo haddaan qaran loogu danaynayn waayahay hadda natiijada aad filaysaan maxay tahay mar haddii aad daliil aad hormariseen adeer daliil maanan hormarin aan ku soxo annaga waxaan ka qaybnahay 12 goob doorasho labada golo baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay madaxweynuhuna saxiixay waxaan sugnay amnigi mid heer qaran iyo mid deegaan waxaan sugaynaa doorashadii baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay madaxweynuhuna saxiixay wixii ayada ra'iisul wasaaruhu 9 bilood ka hor buu yimid Garbahari wixii lagu heshiiyay inuu fuliyaan ku ballanay
oo guddoomiye iyo ku-xigeen degmada Garbaharey la soo magacaabo waxa weeye guddoomiye iyo ku-xigeenkii markaas shaqaynayayna waa fasaxan oo waa dirnay 10 bilood bay maraysaa ballankii 17 September baan annagu sugaynaa ku fadhinaa qodobka labaad Garbaharey ra'iisul wasaaruhu kama dhigi kara kama dhigi kara dadleeyahay wixii qaranka Soomaaliyeed ku heshiiyay baarlamaanka uu ansixiyay wax ka bedelan hadduu la imaado wiil baraxley ka yimid buu noqonayaa kuwa uu soo dirayna midna ceel dheer buu ka yimid midna ceel buur buu ka yimid midna wuxuu ka yimid meesha la yiraahdo Dhusmareeb dadkuna xaafad uu noqonayaa marka doorashadii lagu heshiiyayna nin Garbaharey ka rar meel kaliya geysan karo ama nin kale kula shawri kara ma jiro taa marka inta kaga baxo ujoodka rasmiga oo waaqaca markaana adno 23 xibnood oo magaalada Kismaayo lagu soo xuray 15 aqalka golaha shacabka iyo 8 senator waxaa la geeyay Nairobi xarunta nabadgelyada Kenya annagana Kenya dhulka Soomaaliyeed baan ka difaacaynaa oo kala diriraynaa xinka iyo kala jiidashada iyo xafiisyada ay haysta iyo Soomaalidan isku mashquulsan jaanis ba ma aanan hayn waxaan marka ra'iisul wasaaruhu uu naga xulxulayo waa ballamo dawladaha ajnabiga lala soo galayo 16 qof ee Soomaaliga ah ee ka soo baxayso gobolka Gado in Kenya loo xulo Uhuru Kenyatta uu bacrimiyo ayadaanan diidanahay anagu Kenya NFD bay naga haysatay gobolada Jubbana waa kula diriraynaa Gadana waa ka cayrina Jubbada hoosena waa isku haysanaa ujeedada rasmigeeda waaqaca markaan hada waasaas waxaan ku celinayaa wixii lagu ballamay baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay wixii ka baxsan waa nin xaafad ka yimid nin xaafadiina nin kale ma maamulo nasliga iyo nasabada Soomaaliya kuma jirto damacyada caynkaasana rag baa hore isku day ku hungoobay